السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو هذا channel كينا أيا يرد شو إن شاء الله تعالى waxaanu idin bilaabi doonaa idinna soo gudbin doonaa sheeko taxano ah kana mida sheekooyinka adduunka ugu xiisaa badan looguna akhriska badan yahay. sheekadaas oo lagu turjumay inta badan afafka adduunka. sheekada magaceeda waxaa la dhahaa kun habeen iyo habeen. waxay kaloo caan ku tahay magaca af carabida ah ee alf leyl wa leyl. sheekadaasi waa sheeko aada iyo aada u xiiso badan, dhammaan adduunka oo dhanna ka mida sheekooyinka loogu akhriska badan yahay. caawa waxaan inoo akhri doonaa insha allahu tacaalaa qaybtii koowaad. daawasho wacan. waxaa la sheegaa allah si xaqiiqda oge inuu jiray waa hore boqor oo ka mid ahaa boqortooyadii reer saasaan, taasoo dhacda galbeedka hindiya iyo sandi. wuxuuna ahaa boqor leh awood iyo ciidan mid dhaqaaleba. wuxuuna dhalay 2 wiil oo kuwin la dhihi jiray boqor shahri yaarkan ka yarna la odhan jiray boqor shah zamaan. waxaa dhacday in boqorkii weynaa uu xanuunsaday xanuunkiisii geerida. kadibna isagu wacay 2diisii wiil ee amiirada ahaa, wuxuuna u sheegay in boqortooyada uu u kala qaybiyey oo midba goonidiisa wuxuu ku imi doono oo aysan isku xadgudbi doonin. kadib markuu boqorkii weynaa dhintay, 2dii wiil sidii ayay yeeleen, mid kastaa boqortooyadiisii ayuu maamushay. muddo markii ay ka soo wareegtay oo aysan is arkin ayaa waxaa dhacday in boqorkii weynaa ee shahriyaar u xiisay walaalkiisii ka yar, wuxuuna u qoray fariin uu ugu sheegayo inuuna u xiisay oo u imaado. boqorkii yaraa wuu ka yeelay hadalka walaalkiis, wuxuuna go-aansaday inuu safro. maalintii dambe ayuu soo safray boqorkii yaraa. markuu muddo jidka ku soo jiray ayuu wuxuu soo xasuustay inuu iska soo ilaaway hadiyad khaas ahayd oo uu ugu talagalay walaalkiisa weyn. sidaas darteed dib ayuu usoo noqday, wuxuuna qasrigiisa ku soo noqday waqti habeen ah. markuu qolkiisa soo galay ayuu wuxuu arkay arrin argagax leh, aadna uga fajicisay. wuxuu arkay xaaskiisa oo addoon sariirta la saaran yahay. boqor shaah zamaan markuu arkay arrintan ayuu adduunkii la madoobaaday, wuxuuna is yidhi haddiiba ay naagtan falkan ku kacday adigoo aan weli beledka toos uga bixin, maxaa dhici lahaa haddii aad maalmo sii maqnaan lahayd. markaas ayuu go-aansaday inuu 2doodaba ka takhalluso, isagoo kulka ka wada gooyey. intaa kadib boqorkii isagoo murugaysan ayuu iska soo baxay, wuxuuna u yimid walaalkiis iyo boqortooyadii uu ka talinayey. kadib boqor shahriyaar aad ayuu ugu farxay maatinka walaalkiisa ka yar, si fiican ayuuna u soo dhaweeyey. laakiin wuxuu dareemay in walaalkiis ka yar aanu faraxsanayn. markaas ayuu u qaatay inuu la murugaysan yahay maadaama uu ka soo fogaaday dhulkiisii iyo boqortooyadiisii. kadib boqorkii weynaa wuxuu diyaariyey mawkib si ay u ugaarsi iyo tamashlo u aadaan, isagoo uga dan lahaa in walaalkiisa ka yar kaga farxiyo si uu murugada u ilaabo. maalintii la bixi lahaa ayuu boqorkii yaraa ka cudur daartay inuu baxo. kadib walaalkiisii weynaa iyo kooxdiisii keligood ayaa ay baxeen ugaarsina aadeen. boqorkii yaraa isagoo qolkiisa isaga jira aadna u murugaysan ayuu daaqada qolkiisa oo xigtay dhinaca beerta qasriga sanqadh ka dareemay. markaas ayuu dhinacii soo aaday. muxuu arkay layaab wuxuu arkay arrin ka yaabisay, kii haysatayna ka daran. waxaa beerta qasriga soo gashay dumaashidiisa uu qabay boqorka weynaa oo addoon gacanta haysata, iyo 20 jaariyadood oo ka mid ah oo mid kastoo addoon gacanta ku haysato. halkii ayaana tamash la galay. markaas ayuu boqorkii yaraa ee shaah zamaan is yidhi walee dhib ku haysatay waxaa ka daran kan walaalkaaga maanta haysata. wuxuuna go-aansaday inuu iska ilaawo murugtii haysatay, caadina iska noqdo. markuu soo laabtay boqorkii weynaa boqor shahriyaar wuxuu dareemay isbeddelka ka muuqda walaalkiisa boqor shaah zamaan, wuxuuna go-aansaday inuu weydiiyo.
markii dambe ayuu weydiiyey wuxuuna ku yidhi walaalow halkan markaad imanaysay waxaa kaa muuqatay murugo iyo tiiraanyo laakiin hadda caada ayaa tahay waxaad ii sheegtaa waxa murugta kaa keenay iyo waxa murugta kaa qaadayba wuxuu ku jawaabay boqorkii yaraa waan kuu sheegaya waxa murugtayga keenay laakiin kuuma sheegayo waxa murugtayga qaaday markaas ayuu boqorkii weynaa yidhi waayahe bal ii sheeg waxaa murugta ku keenay markaas ayuu kugu sheekeeyey arrintii uu kala kulmay xaaskiisa iyo addoonkii ay sariirta la saarnaydba markaas ayuu boqor Shahriyaar yidhi ilaa waa inaad ii sheegtaa waxa kurbada saas u weyn kaa qaaday markuu ku adkaystay ayuu u sheegay wixii beerta qasriga ka dhacay boqorkii weynaa wuu rumaysan waayey markaas ayuu walaalkiis ka yaraa ku yidhi haddaad beentayda u malaynayso dadka isugu wac oo ku dheh dalxiis iyo ugaarsi ayaa la aadaynaa marka la baxona inta aad soo dhuumato qolkaaga soo gal boqor Shahriyaar sidii ayuu sameeyey kadibna maxaa dhacay wuxuu arkay xaaskiisa iyo addoonkii iyo wixii walaalkiis uga sheekeeyey sheekadu weli fari kama qodna waa habeenkeenii koowaad halkaasaan caawo ku joojinayna insha allahu tacaala la soco qaybaha dambe subscribe-ta ha ilaawina insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu